بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 24ka bisha June sanadka 2026 ku soo dhawaada mar kale iyo tabinta faaqidaada wararka caalamka iyo diblomaasiyadda oo aad si toos ah uga daawanaysaan channelka Cabdicasiis Barrow qodobo weyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa waxaana kamid ah dawladda Ruushka iyo Mareykanka ayaa markan u muuqanaya inay gurodda isla galeen wasiirka amuraha dibadda wadankaasi Sergey Lavrov waa Ruushka waxa uu leeyahay dawlad kaliya lama jooga xilliga ay adduunka ka talin jirtay dhawa ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sababi gaaray in uu burburo heshiiska wada xaajoodka ay la doonayo in lagu soo dhameeyo colaadda u dhaxaysa dawladda Iran iyo waliba dalka Mareykanka wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchina waxa uu leeyahay lama aqbalayo damaca Trump ee ku aadan nuclear-kan inuu faraha soo galiyo oo baaritaano la sameeyo marnaba suuragal maaha ayuu leeyahay in gacanta loo galiyo kooxaha baarayaasha ah deegaanada ay weeraraan ciidamada Mareykanka wararka kale ee soo baxaya waxa kamid ah Pakistan oo sheegtay wada xaajoodka u dhaxaya Mareykanka iyo Iran in uu dul meeri doono saddex qodob oo aas-aasi u ah heshiiska gobolka bariga dhexe saddexdaasi qodob ilaa iyo hadda maxaa laga yaqaanaa gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Mohammad Baqir Ghalibafna waxa uu leeyahay marka la fiiriyo amniga gobolka bariga dhexe dawladaha kaliya ayuu u yaalaa halka wada jooga laakiin kuwa doolka ku yimid sida Mareykanka oo kale waa inay isaga dhaqaaqaan Iran maluuqa dagaal ayay bixinaysaa kadib hadalka adag ee ka soo baxay wadanka Ruushka qodobadaas ee dhacdooyinka ugu waaweyn gobolka ayaan khiyaarta inala socotay faaqidaad gaar ah ku sameyn doona barnaamijkan galabnimo meel kasta oo aad dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo maasantar aan ku horeeyay dawladda Ruushka ayaa waxa ay u muuqataa markan in ay qaadayso tallaabooyin caragelinaya wadanka Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump wasiirka amuraha dibadda wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku dhawaaqay in dunida xilligan aysan joogin marka dawlad kaliya ay ka talin lahayd hadalkan ayaa si toos ah ugu dhacaya wadanka Mareykanka waxana ay ku soo aadaysaa iyadoo labada dhinac waa Moscow iyo Washington ay lugaha kula jiraan caqabado aad u adag oo dhinaca amniga ah dalka Ruushka ayaa dagaal kula jira Ukraine dhaqaale caajis iyo dhiigbax ballaaran oo military ayuu halkaasi kala kulmaya iyadoo Mareykankuna uu hadda doonayo in uu ka luga siibto colaadii ka taagnayd wadanka Iran oo hadda wada xaajoodkooda laga shaqeynayo wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in nidaamka caalamiga maanta uusan u saamaxaynin wadan kaliya uu noqdo hogaamiyaha qura ee dunida jooga ma jiri doonto buu yiri wadan awood u leh inuu noqdo hogaamiyaha kaliya dunida ku amartaagleynaya hadalkan ayaa si toos ah u taabanaya dawladda Washington waxa uu sidoo kale ku eedeeyay in Ruushka in uu qaar kamida uu qaataba kaalinta lagama maarmaanka si loo gaaro heshiis waara oo u dhaxeeya dawladaha Iran iyo Mareykanka wasiirku waxa uu intaas ku daray in Moscow ay wali u furan tahay wada hadal ay la yeelanayso dalalka reer galbeedka balse wada hadalkaasi uu ku saleysan yahay is-ixtiraam isfahan sinaan iyo tixgelin danaha dhinacyada ishaya ay dhamaantood ku saabsan yihiin hadalkan ayaa imaanaya xilli ay sii soconayaan dadaalada diblomaasiyadda ee lagu xoojinayo xal u helidda colaadda gobolka bariga dhexe oo iminka gaartay meeshii ugu sareysay hadalka ka soo baxay Moscow ilaa iyo hadda kama aanay jawaabin dawladdaasi Washington oo uu u muuqanayo hadalkan culus ee ka soo baxay dawladda Vladimir Putin in uu si gaar ah u taabanayo wasiirka amuraha dibadda wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa ku dhawaaqay in colaadda ka taagan gobolka bariga dhexe la joogo xilligii si dhaba loo faragelin lahaa arrimaha nuclear-ka wadanka Iran iyo hadallada Trump ka soo baxayay saacadihii ugu dambeeyay ayuu si adag uga jawaabay isagoo tilmaamay in aanay suuragal ahayn goobaha la weeraray ee nuclear-ka in kooxo baarayaal la geeyo
hadalkaasina uu yahay mid riya maalmeed ah oo dowladda Tehran aysan suuragal ka ahayn. dowladda Iran ayaa sheegtay inaysan jirin wax qorshe ah oo lagu ogolaanayo in la galo xarumaha nuclear-ka ee dhawaan la weeraray in la baaro agabka nuclear-ka ee halkaasi yaalla oo dowladda Iran ay leedahay. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Iran iyo ku-xigeenkiisa ayaa sheegay in Tehran aysan qorsheynayn in dibadda loo ogolaado baaliyay dadka imaanaya in ay gaarto golaha ama goobaha nuclear-ka ee waxyeeladu gaartay, isagoo xusay in arrintan ay tahay mid aan miiska saarnayn xilligan. Trumpne uu doonayo dunida in uu ku qalqalgeliyo hadalladan. Talaabo kasta oo noocaanina waxay abuuri doontaa buu yiri kala fogaansho dhexmari doona dowladaha Mareykanka iyo Iran. sidoo kale mas'uulkan ayaa cadeeyay in aysan jirin kaalin ama kulan ka dhacay dalka Switzerland oo dhexmaray agaasimaha hay'adda atomikada qaramada midoobay Rafael Grossi inkastoo iyo mas'uuliyiinta dowladda Iran inkastoo uu codsaday in kulan noocaas uu meesha yimaado asaatee dowladda Iran ay gabi ahaanteed bagaashaanka u daruurtay. dhinaca kale Iran ayaa waxay ku adkaysatay arrimaha la xiriira kormeerka xarumaha nuclear-ka ee gobolka iyo agabka iyada gaarka ay u leedahay inay tahay dana masiiri ah oo wadankaasi kaliya uu leeyahay. hadalkan ayaa muujinaya mowqifka adag ee Tehran ee ku aadan ilaalinta barnaamijka nuclear-ka xilli ay socdaan dadaallada diblomaasiyadeed oo la doonayo guud ahaantiiba colaadaasi in lagu soo gabagabeeyo. iyadoo wali ay arrimahaasi miiska saaran yihiin oo dhinacyada kala duwan ee Mareykanka iyo waliba dowladda Iran ay si aad ah ugu loolamayaan, haddana warar kala duwan ayaa soo baxaya iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump weer qura oo afkiisa ka timid ay sabab gaadhay in uu burburo heshiiska laga shaqeynayo dhex yaalla wadamada Iran iyo Mareykanka. telefishinka Al Jazeera waxa uu xiganayaa wargeyska The Wall Street Journal oo qodobkan si gaar ah u faaqidaya warbixintuna waxay leedahay sida uu daabacay wargeyska The Wall Street Journal waxa uu shaaca ka qaaday in wada hadallada u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka ee ka soconaya Switzerland ay mar qura qarka u saarmeen in ay burburaan kadib hanjabaad isi soo taraysay oo si lama filaan ah uga soo baxaysa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. sida ila xog ogaalihi ay sheegeen isla markaana uu waramay wargeyska gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa ku jiray qolka wada hadalka maalintii Axadda markii uu Trump bartiisa bulshada uu ku soo qoray in Mareykanka uu dib u bilaabi karayo weerar ka dhana Iran haddii Tehran ay xakameyn weyso baaliyay awoodda ururka Hezbollah ee ka dagaalamaya wadanka Lebanon. maadaama taleefanka Ghalibaf uu gacantiisa ku jirin xilligaasi mid ka mid ah la taliyaashiisa ayaa u gudbiyay fariinta Trump. tani waxa ay keentay in mas'uulka Iiraaniyiinta ee Ghalibaf uu horeeyo ay si toos ah uga hadlaan arrintan madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi JD Vance oo ka mid ahaa ergada Mareykanka ee markaasi fadhiya miiska wada xaajoodka. tani waxay u muuqanaysaa inay si adag u taabanaysay hanaanka wada xaajoodka oo markaasi ay naftacbaanihi ku jirtay oo ay suuragal ahayd markasta inuu burburi karay. ilaawareedyadu waxay sheegeen in Ghalibaf uu si degan ugu sheegay Vance in hadalka Trump uu jabiyay qodobka ugu sarreeya ee heshiiska is-afgaradka oo dhawaan si elektarooniga ay u saxiixeen Washington iyo Tehran. qodobkaasi ayaa dhigaya in labada dhinac aysan qaadin warar abuuri karaya weerar suuragal ka dhigi karaya in dagaal dib loo amaamudo oo dhinacyadani ay si weyn isku wajahaan. marka Vance uu isku dayay in uu sharaxo hadalka Trump oo ahaa digniin ku saabsan wixii dhici kara haddii Iran ay jabisay heshiiska, wafdiga Iran ayaa la sheegay inay si kumeel gaar ah uga baxeen kulanka tooska ahaa ee wada hadalka. warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in xaaladdu ay ahayd mid aad xasaas u ah isla markaana gelisay baaliyay dadaalada diblomaasiyadda mid halis ah oo xitaa ku qasabtay Trump markii dambe in uu ka qoomameeyo waxa uu sameeyay oo taabanayay
mustaqbalka gobolkaasi iyo waliba jiraalka dowladdaasi ay leedahay. heshiiska waxaa hadda ka muuqanaysa inuu aad u tabaryar yahay marka la fiiriyo hadallada goodinta ah iyo loolanka dhinacyada ishaya ka soo baxaya. hase ahaatee wafdigan dhinacyada wada hadal siinaya ee Pakistan iyo Qatar ayaa hadda tilmaamaya 3 qodob oo mugdi ku jira inay banaanka keenaan. waxay leeyihiin waxyaabaha nuclear-ka ah, dowladda Iran lacagaha ka xayran iyo waliba qadiyadda Lebanon waa mid ugu weyn oo dhinacyadu ay ka doodayaan. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Pakistan ayaa sheegay in wada xaajoodyada hadda socda Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya ay diiradda saarayaan dhowr arrimood oo muhiim ah sida uu sheegay wasiirka wasaaraddu. hadaladana waxa ay ku saabsan yihiin booyri 3 qodob oo laga maarmaan u ah wada xaajoodkan: barnaamijka nuclear-ka ee wadanka Iran, hantida lacagaha ah ee Iran dibadda looga xanibay, iyo xaaladda dalka Lebanon iyo arrimaha amniga gobolka. waa qodobada 3 ah ee miiska saaran oo dhinacyada la rabo in si uuna iskula afgartaan. tanina waa mid keenaysa Trump inuu si weyn u doobiyo isagoo ku dhawaaqaya in la jooga xilliga baaritaanka lagu sameyn lahaa dhinacyada kala duwan ee nuclear-ka wadanka Iran. maanta Trump qoraal u baahiya waxa uu ku dhawaaqay in hay'adda atomikada qaramada midoobay lagu dari doono dhinacyada Mareykanku ay door bidayaan in ay baaritaan ku sameeyaan nuclear-ka wadanka Iran. taas oo ugu dambeyntiina Abbas Araghchi uu ku gacan saaray kuna tilmaamay hadal malagay galay oo aan la qaadan karin. wasiirka Pakistaniga waxa uu sidoo kale sheegay in la qorsheynayo in la soo rogo wax khidmad ah oo maraakiibta ay ku bixiyaan maanta marinka Hormuz, isla markaana aan loo baahnayn booyri ruqsado ama ogolaashiyo gaar ah oo ku saabsan si loo maro marin biyoodkaasi. hadalkan ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo Tehran iyo Washington u dhaxeeya, taasoo abuuri karaysa in xiisadu ay aad u sii xoogaysato. dowladda Iranna waxa ay ku dhawaaqday in dowladaha doolka ah ee gobolka bariga dhexe yimid aanay uga banaanayn xasilinta gobolkan door ay ku leeyihiin oo loo baahan yahay oortooda inay ka rartaan. waa hadal si gaar ah loogu durxulay wadanka Mareykanka oo la leeyahay isaga dhaqaaqa xariyahaad ka samaysateen wadamada Carabta. dowladda Iranna ma ogolaan doonto fursadaad halkan ku sii maamuli doontaan. dhawaqan ayaa daba socda kii Sergey Lavrov, wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ruushka, oo dhawaan shaaciyay. gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa sheegay in siyaasadda Iran ay ku dhisan tahay in ammaanka iyo xasiloonida gobolka ay mas'uul ka yihiin gobolada laftooda wadamada ku yaala oo aanay u baahnayn faragelin dibadeed oo imaan karaysa. siyaasaddu waxay ku salaysan tahay in ammaanka gobolka uu ku sugan yahay dalalka gobolka qudhooda oo ay askartooda ku filan yihiin tillaabooyin kasta inay qaadaan. waxa uu sidoo kale sheegay in uu diyaar u yahay in laga shaqeeyo dalalka gobolka sida arrintaasi iskaashi ay uga sameyn lahaayeen. faragelin kasta oo ay sameeyaan dalal shisheeye xaaladda ayay sii qarribi doontaa, ayuu Ghalibaf yidhi. gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayaa intaa ku daray in xabad joojinta iyo waliba joojinta dagaalka ka socda Lebanon ay yihiin laba isku sidkan oo Iran ay u aragto hal qodob oo muhiim ah. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo Tehran ay taageersan tahay xalad diblomaasiyadeed iyo wada shaqayn goboleed oo lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe. golaha wasiirada ee wadanka Qatar ayaa waxaa ka soo baxay war si weyn u taabanaya arrimaha heshiiska iyo dhaqdhaqaaqa diblomaasiga ah ee ka soconaya gobolkaasi. dowladda Qatar ayaa qaadatay dhibcad siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii ay taageero siisay wadanka Pakistan oo xaaladdu ay ku xumayd si dhinacyada loo lamayay waa Mareykanka iyo Iran in la isugu keenay. golaha wasiirada dalka Carbeed ee Qatar ayaa amaanay waxa ay ku tilmaameen gool taariikhi ah oo diblomaasiyadeed oo ka dhalatay
dadaaladii dhexdhexaadinta ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kadib toddobaadyo ay socdeen dagaallo iyo xiisado military oo aan horey loogu arag gobolka Bariga Dhexe isla markaana dalka Mareykanku uu ku dhig baxay colaado uu la galay ciidamada ilaalada kacaanka wadanka Iran si kastaba inkastoo labada dhinac ay ku dhawaaqeen xabad joojin degdeg ah xaaladda hadda wajiga cusub ee wada hadallada ayaa la kulmaya caqabado iyo waliba mugdi siyaasadeed oo aad u ballaaran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo lagu soo afjarayo qatarta nuclear-ka ee Iran hase yeeshee warbaahinta Mareykanka iyo tan Britain labadaba waxay sheegayaan inay jiraan khilaafyo waaweyn oo ka dhaxeeya arrimahan oo u dhaxeeya dowladda Iran isla markaana sida Trump uu wax u turjumayaan ay hadda u muuqan sida ay qoreen warbaahinta reer galbeedka isafgaradka ayaa la gaaray waxna uu furay baa la yiri albaab cusub oo wada xaajood ah balse waxaa jira su'aalo badan oo muhiim ah oo aan wali jawaab loo helin gaar ahaan arrimaha la xiriira barnaamijka nuclear-ka Iran hantida Iran ee dibadda uga xaniban iyo colaadda ka taagan gobolka gaar ahaan dalkaasi Lebanon oo ciidamada Israa'iil ay tilaabo qaadayaan falanqayaal badan ayaa aaminsan in natiijada wada hadalka uu saameyn weyn ku yeelan karo amniga iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe taas oo muddo dheer la filayay in isbedelada taagan ay abuuri karaan baa la yiri dadaallo waaweyn oo aad u xoogan telefishinka Al Jazeera ayaa hadda qoraya war degdeg ah oo ku saabsan Netanyahu oo ku dhawaaqay in aanay suuragal ahayn in ay isaga tagaan dalka Lebanon waxana uu yiri war saxaafadeedkiisa waxaynu qiimeynaynaa dhammaan xaaladaha koonfurta wadanka Lebanon in laga mamnuucay oo ay halkaasi ka fogaadeen ururka xisbiga waxaan sidoo kale abuureynaa buu yiri howlgallo gaara iyo waliba dhaqdhaqaaqyo ka hor iman kara wadanka Iran inay hesho hub nuclear ah waxa uu yiri Iran oo hesho hubka nuclear-ka waxay noqonaysaa arrin taabanaysa jiritaankeena Iran inay hesho hubka nuclear-keeda waxa uu ka dhigan yahay in ay caalamka iyada u talin doonto taasoo abuuri karaysa buu yiri guud ahaantiiba meesha inaan ka baxno akhyaarta inala socotay fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay tabinta qaybtan iyo barnaamijka taxliilinta caawa iyo barnaamij iyo faaqidaada wararka gobolka Bariga Dhexe iyo arrimaha diblomaasiyadda qaybtan intan ayaan ku hakin doonaa warar kale oo xiiso leh ayaan noo soo socday khiyaaray meel kasta oo dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara nabadgelyo